maanta waxaa idinkugu yeeray inaad ka qayb noqotaan qorshaha 5 sano soo socota. waxaa la wadaa oo muddo la soo waday la rabaana waqtiga sanadka inta ka dhiman 2 bilood dhiman bisha hadda maanta bilaabatay iyo bisha soo socotay lagu gabagabeeyo qorshihii waxbarashada ee 5 sano soo socota ee dalka Soomaaliya dhan. markii hore waxaa laga soo shaqeeyay oo waqti la soo galiyay in la soo sameeyo ESA-gi markii la soo dhameeyay waxaa la bilaabay ESP-gi ESP-gana waxaa loogu talagalay in marka hore qolo walba baahida lagu soo dhiso maamul goboleed kasta waxaa loo saaray dad ka shaqeeya ka gobol banaadir ahaan waxaa nooga mas'uula Cabdiraxmaan markii qorshooyinkaas la dhameeyana ka bacdi waxa laga soo saaraya qorshihii guud ee 5 sano soo socota ee dalka oo dhan. wuxuu soo maray heerar kala duwan qorshahan dad kala duwan loo soo bandhigay kasoo doodooda kasoo qayb qaatay maanta idinka in joogta oo ardadii ah marka maxay tahay muhiimadda ay leedahay in ardada loo yeero marka maxaa la ku yeeray waliba wal insii xulo waxaan in ka dhigay gabdhihii waxaa gabdhaha waa in si fiican barnaamijka uga qayb qaataan ardadu waxay leeyihiin cod waxay leeyihiin xuquuq qorshaha 5 sano soo socota horta in la fahamsiiyo waa la ku yeeray muxuu yahay qorshahan marka fahamtaanna waxaa la rabaa inaad ku darsataan doodiina waxaa la yaabaa qof in ka mid ah hadda inaad dugsi sare bilow tahay fooman tahay oo 4 sano ku dhiman tahay haddii qorshahan maanta aad og tahay marka 5 sano soo socota socon doona adoo fooman fadhiya fasalkii 9 fadhiya foomana oo maanta aad og tahay qorshahaas 5 soo socota waxa uu yahay iyo waxa ardada ay ku leeyihiin hadabtu waxa dhahaysaa sanad kasta markaad iskuulka dhameysidba qorshihii aan ayaantii wax ka ogeyn xagee maraya maxaa dhamaaday wixii annagana quseeyna maxay tahay sababta qorshaha dhan wuxuu ku dhamaanayaa arday waa in iskuul la dhiso waa in la qalabeeyo waa in qalab lagu raadiyo waa in macalimiinta la tayeeyo waa in manhajka lagu sameeyo wax dhan wixii ka shaqeynayaan oo qorshahaas dhan ka shaqeynaya sidee loo helaa arday tayeysan ayaa qorshaha dhan ku shaqeynaya sida daraaddeed marka waxay runtii faa'iido ah oo horumar fiican ah oo marka ugu horeysay ah in qorshe la dejinayo la idin yeero oo la dhaha kaale ka qayb gala hadda kor ma qasheen meel ma ku maqasheen ya may